waxaa halkan kugu soo gudbinayaa 8 qodob oo aad naftaada u maalgashan karto ama aad ku horumarin karto. Qodobka koowaad, xakamee waqtigaaga. waxaa muhiim ah inaad ogsoon tahay in muhiimad gaar ah ay ku leedahay in waqtigaaga aad maamulato, sida inaad jadwal maalmeed samaysato, hawlaha maalinkiina sida ay u kala muhiimsan yihiin aad u kala hormariso qabashadooda. 2 fidi goobaha dadka macaariifta aad tihiin, yacni saaxiibo badan yeelo, bulshada dhexgal oo baro dad aad u tiro badan, weliba isku day in dadkaasi ay noqdaan kuwa beri ka maalin aad u baxsan karto ama kaa caawin kara arrimo aad u tiro badan. 3 baro xirfado cusub. had iyo jeer raadi waxa aad ku wanaagsan tahay, dabadeedna isku day inaad hormariso. 4 daryeelkaaga caafimaad. qodobkan waa mid aad u muhiim ah. muddo markii aad joogtaba ku dadaal in aad marto baaritaan guud oo caafimaadka ah, si la mid ah jimicso oo daryeel qaabjireedkaaga. 5 xadid yoolkaaga ama hadafka aad leedahay. wixii aad qorto ayaa u nugul in ay xaqiiqo noqdaan ama u dhow. haddaba diiwaangeli dhammaanba yoolashaada ama hadafkaaga dhow iyo kan waqtiga dheer qaadanaya. 6 kaydso kala bar hantida ku soo gasha. haddii maalintii ay ku soo gasho $2, waa in akoonka ama kaydka aad ku ridaa $1 si berri ka maalin aad ugu baxsato ama aad ku xaqiijiso yool aad leedahay. 7 jooji dib u dhigista hawlaha. qabo hawsha inta aanay biirin oo aysan waqtigeeda dib uga dhicin, taas oo keeni karta in hawsha qabashadeedu ay kugu adkaato. hawl walba xilliga ay taagan tahay ku kala tuur, kadibna hawsha xigta u gudub. 8 akhri, daawo oo dhegayso wax walba oo faa'iido ku leh, si la mid ah baar walba oo aad isleedahay faa'iido ayay ku leeyihiin. kuna dadaal inaad noloshaada si uun ugu lamaaniso. saaxiibada sharafta leh ee ku xiran bartan, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan barta YouTube-ka ee Walaalka Show. waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekooyin waxtar u leh bulshada iyo kuwa iska maad ah. saaxiibayaal, adinkuna inagu dhiirigeliya like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. mahadsanidin.